degmada Xudun oo ka tirsan gobolka Sool ayaa waxaa in muddo ahba ka jiray dagaalo u dhaxeeya maleeshiyaadka maamulka la baxay Somaliland iyo ciidamada maamulka Khaatumo waxaana dagaalkani qarxay kadib markii maleeshiyaad aad u tiro badan oo ka tirsan maamulka la baxay Somaliland ay soo galeen degmadaasi. Haddaba dagaaladan ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay dhinacyo badan oo nolosha deegaanka ah, waxaana colaadda ka aloosan degmada Xudun ay saameysay dhinacyada waxbarashada iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee degmada Xudun. Maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmada Xudun oo ay dhigtaan arday lagu qiyaasay ilaa 400 oo arday ayaa ka warbixiyay colaadda ka aloosan degmada Xudun ay u saameysay dhanka waxbarashada. intii ay yimaadeen ciidamadan xagga galbeedka iyo Somaliland iyo ciidamadan Khaatumo soo fadhiga halkan ay isku hor fadhiyaan waxa ay saameyn ku yeelatay xagga waxbarashada markasta iyo saacad kasta oo ay dhici karto waa mid aan baqdinteeda wadnaha farta kaga hayno ka arday ahaan iyo macallin ahaanba waxaanu ka dareemaynaa run ahaantii ardada dad badan oo arday badan ama waalidiin badan iskuulka dhigan jiray colaadahaas markii ay bilaabmeen ama ay yimaadeen dagaaladaas u dhaceen dad badan baa tuulooyinka iyo meelaha u guuray u qaxay qaar maxay ahayd goboladaas ay u qaxeen waxayna ku yeelatay saameyn aad iyo aad u ballaaran. haddaad aragtay magaalada waad arkaysaa magaaladu inay cidlo tahay oo dadka jooga aad u yar yahay waxa ku hadhan ay yihiin maato iyo carruur. marka taas ayaa ku cadaynaysa inay ku yeelatay saameyn aad u ballaaran. ilaa iyo imikana baqdinta waxaanu ku haynaa run ahaantii in xilli kasta ay dhacdaba in aanu suran karno waa mid waxyeelo ku ah xagga waxbarashada. ardadu ama iyo macallimiintu iyo dadku way ka soo yaacayaan markiiba fasalada xabadii oo dhacaysa marka mar alla markaan dhaqaaqa dareeno khasab waxaa nagu ah in aanu ardayda ka joojino waxbarashada ardadu si ay guryahooda ugu kala yaacaan. haddaas ka aloosan deegaanka degmada Xudun labada ciidan ee Khaatumo iyo Somaliland isku hor fadhiyaan waxaanu leenahay arrintaa hay'adaha caalamiga iyo dadweynaha in ay sida ugu dhaqsaha badan ay wax uga qabtaan sababtoo ah dad maata iyo dad arday wax baranaya cid walba way saameysay. arday subax walba ama deegaan subax walba qori iyo xabadii dhex marayso waxba laguma baran karo waxayna wiiqaysaa ama jibinaysaa waxbarashadii oo ahayd kaliya meesha ka jirtay inay halkaa ku kala dhaqaaqato. horta runtii waxbarashada aanu dhiganaynay anu waxaan maanta fasalka 8 runtii aad baan u faraxsanahay laakiinse waxaan aad uga xumahay waxbarashada sida fiican ugu socotay aadka noogu wacnayd yacnihii ay aad yarto deegaanada degmada Xudun ay ka socdaan dagaaladaasi oo ay sababeen ciidamada Somaliland ee ku keenay degmada taasi oo ay sababtay in waxbarashadii isugu noqoto ama ay yacnihii yare wax ka sii noqdaan yacnihii meeshu waa goob dagaal aad iyo aad bay waxa garoor walba anigu iskuulka ku jirno waxba deegaan ka bilaabanaysa ardaygiisa oo qalinka haysta ma xabad dushiisa ka soconayso مسؤولية جلسين يعني وقال كيلكتو وهذا عالم كإن يعني أي عيد مرة سبيل لنا دول فريق ميدا إن يعني نلقى هذا عيد مرة يعني أي وحبر شيء وسيدا يدو عنا إذا إنه بس عمشتي أي إنه بس سعته وحبر شيء يعني هيدا نحط سنة وحبر شيء يوحول بين حق السكولات اليوم لين عول بيني إنه هجتي sidoo kalena dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee degmada Xudun ayaa laga dareemayaa in uu ka yimi hoos u dhac weyn tan iyo intii ay soo gaareen degmada maleeshiyaadka ka amar qaata maamulka Siilaanyo. bismillaahir rahmaanir rahiim deegaanku markii hore ciidamadan iyo waxa kale aysan iman
waxaa deegaan aad iyo aad u qiimo badan hadday noqoto xagga ganacsiga businesska, hadday noqoto isu socodka gaadiidka, hadday noqoto nabadgelyada caamka ah ee ka jirtay, hadday noqoto nabadgelyada xagga waxbarashada iyo arrimaha bulshada. saameyn fara badan bay ku keentay. arday halku buug iyo qalin uu qaadan lahaa subaxii cabsi daraaddeed ka baqaya marfac soo dhaca inuu dhakada kaga dhaco, waxbarashadiisa waad garan kartaa saameynta ay ku keenayso. meel nabadgelya taallo iyo meel colaad taallana isku mid maaha. waxaanu dareemaynaa businesskiisu uu soconayo isdhimitaan weyn uu ku yimi. waxaa dhacda bilka bil inaan cidina safar aysan dirin. marka xaaladdu ay taagan tahay oo kale gawaardii dee taraashibka ahayd ee socon jirtay ee xilligay doonto safri jirtay, waxay timaadaa in la xanibo oo la yidhaahdo waa bandow, waddooyinka cidina kama soo geli karto, cidina kama bixi karto. dakhligii oo isdhimay oo isdhimitaan uu ku yimi oo xawligii ay gawaaridu u shaqaynaysay safarka ay marba mar ka dambaysa uu usoo kordhayo hakasha ay ku timi oo degaankii laga guuray, hadday reermiyi tahay iyo haddii ay tahay populationkii degmada dhexdeeda ku noolaa. iyana saameyn fara badan bay ku keentay oo dakhli isdhinka yimi awgeed. waxyaalaha ka qayb qaatay waxaa ka mid ah mujtamacii oo ka fogaaday magaalada. waxaanu rajaynaynaa ama aan jecelahay oo aada iyo aada u jecelahay in ciidamadan iyo culayska kan nasaaran nalaga dulqaado. waanu codsanaynaa runtii aada iyo aad baanu codsanaynaa una jecelahay.